iyo waliba mas'uuliyiin kale ayaa waxa uu ka dhacay koonfur bari ee magaalada London. waxaana shirkan lagu casuumay xogayaha guud ee xisbiga udub mudane jaamac yaasiin faarax oo isagu baryahanba uu socdaal ku marayay dalkan Ingiriiska isla markaana uu la hadlayay jaaliyadda Somaliland iyo waliba xubnaha xisbigiisa. annaga hayna teknolojiyadii waxa lagu kala safaynayo wax shakiye iyo wax ka qabtaan haba yeelaatay aysan jirin. ka hor inta uusan hadlin mudane jaamac oo isagu ah xogayaha guud ee xisbiga udub ayaa waxa halkaasi ka hadlay safiirka Somaliland iyo waliba qaar kamid ah xubnaha sarsare ee xisbiga udub ee dalkan UK hadalladooda kamid ahaa. sida ogtihiin community-gu mujtamaceenu marna waa cashaa'iro waa qabaa'il oo ceeb maaha marka sidaa ay tahay marna waa xisbiyo intii ay ina soo gashay doorashooyinkan iyo arrimahani dadkeenni waxay u kala jabeen runtii axsaab iyo qabaa'il. waa mahadsan yahay safiirka Somaliland mudane aadan muuse jibriil warbixinta qiimaha leh ee uu ina siiyay. marka anigu runtii waxaan ka yar waramayaa in yaro xisbigoodu UK maadaama fursadan qaaliga aynu helay. udub UK runtii gudideeda fulinta waxa la sameeyay dhamaadkii 2006kii muddooyinka ku dhow 3 sanadood bay jirtay. xubnaha gudida fulintu waxa weeye 31 xubnood. markii dambe ayaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay xogayaha guud Mr Jaamac oo isna halkaasi uga warbixiyay mas'uuliyiinta ka soo qayb galay shirkan iyo waliba xubnihiisa sarsare ee xisbiga udub xaaladda dalka Somaliland oo imika ku sugan yahay. isla markaana waxa uu aad ugu nuuxnuuxsaday waxyaabihii hakiyay doorashooyinkii la filayay inay ka dhacaan Somaliland laga soo bilaabo muddadii ugu horeysay ee loo qabtay in doorashada halkaasi ay ka dhacdo. jaamac oo arintaasi ka hadlayana waxa hadaladiisa kamid ahaa. waxaan idinku waramayaa waxa weeye wadankii imika muddo 18 biloodaba waxa ka joogay jow doorasho ku salaha oo muxuu ahaayay aan heshiis wanaagsan oo lagu guuro oo lagu gamaa aanu magaranaysaa ay aanu jirin. khilaaf badani oo abuurmay oo 17 sanadood ee ka horeysay muxuu ahaayay in aan jirin waayo waatida Soomaaliya 3 goor oo horeeto election soo gashay. khilaaf badani ma uu dhicin mid walba waqtigii loogu talagalay ayay dhacday. laakiin election kan maanta wuxuu soo kordhiyay xamaasad gaar ah oo waxaad moodaa xiise intii hore ka badan in loo yeeshay kursigan isaga ah ee madaxtinimada Soomaaliland. xogayaha aad ugu dheeraaday warbixintii uu uga warbixinayay jaaliyadda iyo mas'uuliyiinta xaaladda dalka Somaliland waxa uu jaamacu ku tilmaamay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka inay sabab u tahay aaladda tiknoolajiyada ama qalabka lagu shaqeynayay oo aanan fiicnayn. isagoo oo mar kale umurtaasi ka hadlayana waxa uu yiri registration ku kharash bay u baahan tahay. miisaaniyad aynu u hayno registration ka aynu ku galana ma aynaan hayn. registration kina waqtigan casriga ah dee wuxuu u baahday IT maganaysa knowledge buu u baahday. maalintii tirada la bilaabay ee gobolkii ugu horeysay ee awdal tiradeedii ay soo baxday ee waxyaabihii qaldanaa la arkay markaasaa la baraarugay oo ay xukuumaddu markay aragtay qaladaadka meesha ka dhacay duplicate iyo nidaamka isjiiray ee meesha iyo foolxumadeeda kamay aamusin xukuumaddu markiiba nimankii donorska ayuu madaxweynuhu u qoray warqad uu leeyahay mishinkii caynkaas ahaa ee aad dalka iyaga ka qabanayseen habka uu u dhaqaaqay wuxuu yahay hab aad iyo aad looga fargodo. haddaba waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Xasan Jaamac oo isagu ah xogayaha Somali Career Project waxaana uu ku dhiirigeliyay dawladda Somaliland iyo waliba labada xisbi ee mucaarad inaysan ku degdegin inay isticmaalaan miidiyada haddii dhibaato ay dhacdo. inaan marka waxay dhacaan miidiyaha la isticmaalo fariimaha aan miidiyaha la isku marin taasoo keeni karta dadka ma garanaysaa inay kiciso
oo dhibaatooyinka waddankeena ka dhacay iyo afkarwaaga imika jira inay ay hormuud ka yihiin taana waxaan odhan lahaa saddex xisbiya waddanka ka jiraba ama iyo dadka kale mas-uuliyiinta ah ee isticmaalaha miidiyahaba in aanay farriimaha isu marin waxyaalaha dhaawaca u keeni karaya nabadgelyada waddanka inaanay isu marin miidiyaha oo taa laga digtoonaado haddii ay dhacdo xisbiyada mucaaradku inay isticmaalaan dawladduna arrinkaa inay ka digtoonaato oo sidii kale loo wada hadli karayo loo wada hadlo si kastaba ha ahaatee shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan ay saddexda xisbi ay isugu tageen qasriga madaxtooyada halkaas oo uu ku qaabilayey madaxweynaha Somaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin iyo weliba labada xisbi ee mucaarad kulmiye iyo ucud halkaas oo isku afgarteen Ibrahim Umar